afayeenka garabka military ee ururka Xamaas ee Ciisidiin al-Qassam Abu Ubayda ayaa hadal kulul oo soo saaray waxa uu kaga hadlay dagaalada iminka ka socda gobolka Bariga Dhexe gaar ahaan weerarada Israa'iil iyo Mareykanku ay ku hayaan meelo ka mid ah gobolka. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Iiraan oo si adag uga jawaabtay hanjabaado ka soo yeeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku aadan in Iiraan uu ku celin doono casri jaahiliyadii. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegayaa in haddii Iiraan maalinta Talaadada aysan la imaan heshiis ardadiiqaha uu ka dhigi doono goobaha korontada iyo kuwa shidaalka isla markaasna wadanka Iiraan uu noqon doono dab inuu isticmaalo hadda kadib. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa madaxweynaha Iiraan oo isna sheegaya in Mareykanka Hormuus ay ku furi karaan oo kaliya haddii la helo magdhow laga bixiyo dagaalka Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen dalkiisa. hogaamiyaha aqlabiyadda kooban ee xisbiga dimuqraadiga ee aqalka Koongareeska waddanka Mareykanka oo si ba'an uga soo horjeestay ciidamo Mareykan oo dhanka dhulka in loo diro Iiraan arrintaasi oo qatar ku tilmaamay. dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno iyo falaqayntii. maxamed Cabdi wararkan isku soo duway ayaa qadka ku jira. maxamedan ku bilowna qodobada wararka ugu waaweyn. afhayeenka ururka Xamaas garabkiisa militariga Abu Ubayda ayaa sheegay in cadawga Israa'iil uu isku ballaarinayo colaadaha iyo burburka uu gobolka Bariga Dhexe ka wado. wuxuuna ku tilmaamay xaaladda dagaalada hubeysan inay xadgudub ku yihiin ahdiga qaramada midoobay. wuxuuna ku eedeeyay Israa'iil inay sii wado in ay dambiye ka gasho meelo ka baxsan Gaza oo ay ka mid tahay Lubnaan, Yemen iyo Qatar. waxaa kale oo ku eedeeyay colaadaha in ay rabto inay xadgudubyada sii fogeyso siina ballaariso. wuxuuna sheegay caalamka inuu arko Israa'iil in ay dagaal u hurinayso. Abu Ubayda ayaa cambaareeyay waxa uu ku tilmaamay laba wajileynta caalamka. wuxuuna sheegay caalamka awoodaha ka jira in ay dalbanayaan inay tanaasulaad Falastiiniintu sameeyaan halka ay dhibaatada Falastiiniyiinta la gudboon iska indhatirayaan. wuxuuna digniin ku bixiyay hindisayaasha la soo jeediyay ee dhexdhexaadayaasha soo jeediyay inay yihiin kuwa khatara cadaadisna ay kala kulmayaan Israa'iil si loo malmariyo qaraarada ay rabto. waxaa kale uu cambaareeyay dilka maxkamadeed ee qaarijinta ee ka dhanka ah maxaabiista Falastiiniyiinta ah. wuxuuna digniin ku bixiyay haddii wax la yeelo la gaarsiiyo masaajidka al-Aqsa in laga jawaabi doono. wuxuuna ku baaqay Falastiiniyiintu inay si weyn isu abaabulaan. ergeyga u jooga Iiraan qaramada midoobay ayaa cambaareeyay hadallada ugu dambeeyay ee ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka. wuxuuna sheegay madaxweynaha Mareykanka inuu ku hanjabayo inuu burburiyo kaabayaasha muhiimka ah ee dadka rayidka ah ee wadanka Iiraan ku yaala haddii ay ku hartay damiir qaramada midoobe ama damiirka qaramada midoobe haddii uu nool yahay yayna ka aamusin hadalladan furan ee aanan xishoodka lahayn ee hanjabaada ah ee madaxweynaha Mareykanka ka soo yeeraya oo ku bartilmaameysanaya kaabayaasha rayidka. Trump ayaa waxa uu rabaa in gobolka Bariga Dhexe uu ku jiido dagaal ma dhamaata ah. Barta X ayaa ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u fadhiya Iiraan uu ku qoray bartiisa X. waxaa kale oo uu sheegay haddii mid toosa iyo mid dadban ee kicin ah ee uu ku argagixinayo dadka rayidka ah ee wadanka Iiraan in ay xadgudub ku tahay xeerarka caalamiga dambi dagaalna ay tahay. beesha caalamka iyo wadamada waajibaad qaanuuni ayaa saaran inay ka hor istaagaan xadgudubyada dambiyada dagaalaha. waxaa waajiba inay tallaabo qaadaan hadda. berri waxay noqon doontaa waqti dambe oo lasoo daahay. bayaan lagu faafiyey wakaaladda wararka ee Tasniin ee wadanka Iiraan ayaa militariga Iiraan waxay ku sheegayaan inay bartilmaameedsadeen warshado kiimikada lagu sameeyo ee ku yaala magaalada Dimona ee koonfurta Israa'iil. Dimona oo iyada laftirkeeda ah goobta lagu tayageliyo nuclearka wadanka Israa'iil ayaa bayaanka lagu sheegay in militariga Iiraan ciidankeeda ay beegsanayaan meelo kale oo ay ka mid tahay jasiiradda la yiraahdo Buyaan ee Kuwait ku taala oo ay la beegsanayaan diyaarad drones. markii horeysay madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in uu dardar gelin doono weerarada ka dhanka wadanka Iiraan
waxa uu sheegay Iiraan inay ku dhex noolaan doonto cadaab waa sidoo hadalku dhigay hadii markii Hormuz uu sii xirnaado madaxweynaha Mareykanka hadalkiisa soo wada ayaa wuxuu yiri talaadada waxaan duqeyn doonaa goobaha korontada laga dhaliyo iyo buundooyinka oo hal mar aan wada duqeynayno madaxweynaha Mareykanka ayaa bartiisa social truth ku qoray wararkan waxaa sidoo kale uu sheegay wax la mid noqon doona ma jiro weerarada aan qaadi doono ayuu yiri hadallo badan oo meel ka dhaca ayuu jeediyay wuxuuna ku tilmaamay Iiraan in ay yihiin garacyo waalan oo ay ku soo food leedahay inay cadaab ku noolaadaan suga waxa soo socda ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay gabadha la yiraahdo Agnes Callamard oo madax u ah hay'adda u ololeysa xuquuqda aadanaha Amnesty International ayaa sheegaysa hanjabaadda madaxweyne Trump uu ku burburinayo buundooyinka iyo goobaha korontada iyo goobaha rayidka waxa ay dhibaato u geysan doonaan dadka rayidka ma jiri doona bay tiri dadku koronto ay isticmaalaan dab ay wax ku karsadaan biyo iyo sidoo kale mana carari karaan mana bixi karaan waxaas oo dhan waxa weeye bay tiri noloshooda ayaa khatar galaysa barteeda X ayay ku qortay bayaankan oo ay aad u careysan tahay ayay sheegtay madaxweyne Trump waxa uu qorayo waa waxyaabo aan loo dulqaadin karayn Mohammad Reza Aref oo ah madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee waddanka Iiraan ayaa dhaleeceyn u jeediyay madaxweynaha Mareykanka oo ka jawaabay hadallada aflagaadada ay ka soo yeeray iyo waxa uu sheegay madaxweynaha Mareykanka kharash uma hayo barnaamijyada arrimaha bulshada ee waddanka Mareykanka warbaahinta Mareykankana toddobaadkan waxay ku warantay madaxweynaha Mareykanka inuu mar horeba sheegay inuuna awood u lahayn oo xukuumaddiisa awood u lahayn inay barnaamijka daryeelka carruurta iyo caafimaadka carruurta lacag u haynin uu bartilmaameed ka dhiganayo in lacagta ku bixiyo howlo military Trump ayaa sidoo kale ka hadlay inuuna awood u lahayn in uu daryeelka carruurta caafimaadkooda iyo daryeelka dadka waaweyn ee shacabka Mareykanka inuuna lacag u haynin laakiin uu dagaal in uu galo uu ka dhiganayo cudurdaar maantana waxa uu hanjabayaa inuu burburiyo kaabayaasha ay ka mid yihiin goobaha korontada iyo buundooyinka waddanka Iiraan ayuu carab bartiisa X ku qoray cidda rabta in shacabkeeda daryeelkiisa in ay khatar ku geliso inay weerar ku qaado waddan kale waxa uu ku tilmaamay inay tahay cid aan maskaxdeeda fiicnayn Iiraan waxa ay dooratay waddo kale waxa ay dhisaysaa waddankeeda cadaadis kasta oo la saaro madaxweynaha Mareykanka ayaa u sheegay warbaahinta waddanka Mareykanka in dowladda Mareykanka isku dayayso inay hub u dirto mudaharadayaasha Iiraan horaantii sanadkan oo ay sii marsiiso qowmiyadda Kurdiyiinta waxa uu aaminsan yahay in hubkaasi uunan gaarin dadkii mudaharadayaasha hubkaasi oo qoryo badan ka koobnaa ayaa la marsiiyey Kurdida Trump waxa uu sheegay isagoon faahfaahin dheeraada ka bixin hubkaasi meelihii loogu talagalay ma gaarin wakiil ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana hogaamiye u ah Hakeem Jeffries ayaa u sheegay warbaahinta Mareykanka in dowladda Mareykanka aynan ciidan luga u dirin bariga dhexe xaalad kastoo jirta arrintaasi ayuu wuxuu ku tilmaamay inay tahay khatar waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna way mahadsan yihiin daawadayaal waxaan u gudbaynaa falanqaynta wararka iyo wixii warah degdeg ah ee soo kordha ya maxamed aan ku bilowno hadalka Donald Trump hadalladiisa waxaa ka muuqata hadallo aflagaada aad u fara badan erayo badan buu isticmaalay dadka Iiraaniyiinta wuxuu ku tilmaamay dad sida hadalka u dhigay garacyo ah wana hadal meel ka dhac weyn ku ah xitaa marka laga tago nidaamka dawladda iyo ciidanka laakiin dadka shicibka xitaa bahdil ku ah oo aan laga filin hadal diblomaasiyadeed iyo madaxweyne aan laga filayn ma la oran karaa arrintani waa arrin carab ku salaysan iyo dulqaadan la'aan iyo wuxuusan filayn oo dagaalka kala kulmay markuu leeyahay hal la furo marinka Hormuz qasab ha lagu furo waa marna wuxuu leeyahay marinka Hormuz anagu ma u baahninba shidaanna kama qaadana cidii ay halkaas nafta kaga jirta ha furato maxaa lagu tilmaami karaa hadalkan
iiraan gudaheeda markaan fiirino mudaharado waaweyn oo xukuumadda lagu taageeraya ayaa la isugu soo baxay oo xukuumadda laga dalbanayo inayna marnaba wax hadala la gelin xabad joojina ka aqbalin madaxweynaha Mareykanka wax kastoo dhaca. xaaladda jirta sida khabiirada la socda arrimahan ay hadalku dhigayaan waxa weeye shacabka Iiraan oo dhan waa isku duuban yihiin, waa uriyo dirkeed. marka ay Trump timaado hadallada ka soo baxaya iyo waxa uu sheegayo cid kasta ayaa la yaaban. Fuad Izadi oo professor ka ah jaamacadda Tehran ayaa waxa uu sheegayaa barta bulshada waxa uu ku qoray madaxweynaha Iiraan ayaa waxay tahay hadalla meel ka dhaca oo aanan qof wax isku falaya afkiisa u quurin. wuxuuna u hanjabayaa Iiraan waxayna u muuqataa inay muujinayso in madaxweynaha Mareykanka uu xaaladda xakameyn lahayn. cadaadis badan oo siyaasadeed ayaa saaran. sidoo kale waxa uu leeyahay khabiirkani waxa uu isleeyahay islaha waxaad awood u leedahay xukuumadda Iiraan waa bedeli kartaa 3 maalmood gudahooda ayaa ku bedeli kartaa. waxa uu ka niyad jabsan yahay oo ka cariisan yahay waxa weeye hadafyadii uu lahaa oo dhan waa gaari waaye. waxa uu rabay hadafyadaasi inuu gaaro. marka la fiiriyo waxaas oo dhan ayaa Zadi waxa uu leeyahay hoggaanka Iiraan waxa ay rajeynayaan Trump waxa uu sheegan doonaa guul, dagaalkan waa soo afjari doonaa, waa iska tegi doonaa. in la tacaamulo madaxweyne Trump ayaa hoggaanka Iiraan waxay u haystaan in ay tahay cid aanan u qalmin in lala xiriiro ama wax lagu darsado. natiijadana ay noqonayso mid aanan istaahilin in dhinaca Iiraan ay ninkaas waqti iska geliyaan. haddii siyaasi Iiraani ah uu isku dayo in uu Trump la tacaamulo waxaa loo arkayaa inay tahay khasaare siyaasadeed iyo meel iyo qaraska turnimo. u malayn maayo buu leeyahay nin Iiraani ah in uu rabo in lala tacaamulo ninkaas isku dhex yaacsan. waa gartay. waa yahay waxaa kaloo isla arrintani ka hadlay nin wariya oo aqalka cad ka mid ah wariyaasha ka soo warramaya. muxuu ku sifaynayaa hadalka Donald Trump? Mike Hanna ayaa waxa uu leeyahay Trump erayadan xaddaafka ah ee meel ka dhaca ah ee akhlaaqiyad ku fiicneen ee baraha bulshada uu ku qorayo waxa ay tilmaan cad u tahay madaxweynaha Mareykanka maskaxdiisa sida guracan ay u shaqaynayso. waxaa laga yaabaa inay muujinayso in uu yahay nin aad iyo aad u caraysan, niyad jabsan. waxa uu rabi lahaa in cid walba waxa uu sheegaya dhab u qaadato. cid walbana waa ku shacshactiraysanaysaa sida uu hadlayo. wuxuuna ku adkaysanayaa in uu hanjabaadiisa meel marinayo. waxaa lala yaaban yahay ayaa waxay tahay Trump ayaa waxa uu leeyahay talaadada ayaan tallaabo qaadayaa. uu leeyahay waxaan duqeynayaa goobaha korontada iyo buundooyinka. waqtigiisa kama dambaysta ee uu Iiraan u qabtay in lagu furo marinka Hormuz waxa uu dhacayaa maalinta Isniinta. waxa uu ka hadlayana waxa weeye maalinta talaadada maalin kadib ayuu leeyahay fal ayaan qaadayaa. Trump ayaa waxa cad inuu aad u cariisan yahay. xaqiiqadan waxay tahay inuu dareensan yahay in cid warkiisa dhegeysanaysa inay jirin. isku day kasta ee uu damcay inuu wada xaajood ku galay iyo heshiis in ay meel cidlaa ku dhamaatay. wuxuuna rabaa in uu qaado tallaabooyin laga yaabo in uu rabo inuu burburiyo kaabayaasha waddanka Iiraan. waxay tahaba madaxweynaha Mareykanka qaabku u dhaqmayo iyo sida u dhaqmayo cid walba ayaa la yaaban. waa gartay. waa yahay aynu ku soconnaa halkaas. waxaan idiin soo gudbinaynaa daawadayaal war degdega oo haddana soo gaaraya dhanka Israa'iil laga soo gaaraya. laakiin warka intaynu diyaarinayno maxamed aynu ku soconnaa arrintan. waxaa la leeyahay daaha gadaashiisa ayaa waxaa ka socda wada xaajoodiyo Mareykanku inuu tanaasulo ay suurtagal tahay. Trump uu ku dhawaaqo dagaalka in gebi ahaanba la joojinayo. suurtagalna ay tahay inuu yidhahdo dagaalka waa ka baxaya. gobolkii oo qasan Israa'iil weli dagaal ay ku jirto, Iiraan ay weli dagaal ku jirto, inuu yidhaahdo ciidankaygana waa kala baxaya, dagaalkana waa joojinaya. arrintaasi ma dhici kartaa? khabiiro badan oo arrimaha Trump muddo badan ka faaleynaya waxa dhahay cid og ma jirto waxa uu Trump sameynayo. nin fiyow, nin la isku halayn karo, nin istiraatiijiyad raacaya, nin tala qaadanaya, nin ayadoo dagaal lagu dhex jiro
12 generaal oo mid walba mid kale hawl adag militariga Mareykanka u hayo shaqada ka eriyay iyo abaandulihi waxaa muuqata dadkii khabiirada ahaa ee dagaalka yaqaan ayuu meesha eriyay marka ma asaga inta ka qaata dagaalka galaya ayay dadka qaar hadal ku dhigayaan waliba wargeysyada carabta ee aadka uga soo horjeeda waxaa muuqata madaxweyne Trump aqliyadiisa iyo sidoo u shaqeynayo in uu samayn karo wax allaale ee wixii uu rabo cid qiyaasi karta lama arko wuxuu samayn doono professor Jeffrey Sachs waxa uu yiri madaxweynaha Mareykanka hadii uu dagaal ku sii jirana waa jabaya hadii guul uu ku dhawaaqo dagaal ka baxana dagaalka mid istaagay ma aha ayadoon Iran ayna gaarin hadafyada ay leedahay hadafyada Iran ay leedahay maxay tahay inay qaramayso marinka Hormuz in ay burburiso dhammaan kaabayaasha militariga ee bariga dhexe yaala haduu Mareykanka ka tago waxa weeye ciidamadiisa inuu ka gurtay noqonaysa meesha Israa'iilna warkeeda laguma soo qaadi doono Iran sababtoo ah ayada dagaalka qayb ka noqotay Mareykanka isku haleynaysa difaac iyo xuuxinay haduu ka cararo hore ayay u dhacday xuutiyiinta markii uu heshiiska la galay oo damcay Iran inuu ka hadlo xuutiyiinta waxay Iran kama hadli kartid adiga naftaada ka hadlo hadda waxaad moodaa xataa inuu ka hadli karaynin arinta Israa'iil oo ay noqonayso sida hadalka loo dhigay in Israa'iil xaaladda ay ku jirto ay ku sii jirto oo ilaaha qaar ay qiyaasayaan in Israa'iil inay ka soo kaban karin dagaalkan waxa kale oo ayadana la leeyahay waxa laga yaabaa ninkan lama hubo ee maskaxdiisana ma fiyoobe ama uu caalamka geliya dagaal nuclear dagaalkaas nuclearka inuu dhaco ilaaha qaar ayaa waxay leeyihiin waxa cabsi gelinaya in laga yaabo in wadamada Kuuriyada waqooyi iyo Ruushka in ay mar horeba Iran keeneen gantaalo nuclear gantaaladaas nuclearka ana Mareykanka lagu wargeliyay in Iran horena dagaalkii 12 maalmood ah way sheegeen Iran haday u baahato nuclear anaga siinayna haday Iran nuclear haysato Mareykanka madaxweynihiisa waxay noqonaysaa in uu uunan isticmaalin nuclear sababta haduu nuclear isticmaalo nuclearka markii gantaalo lagu siiyo kaligood lagu siin maayo gantaaladana sidii loo ridi lahaa ayaa lagu siinaya gantaaladaasna waxa leeyahay waa sida hadalka loo dhigayo halkii gantaal qasaarada uu geysan karo ayaa waxa uu burburin karaa magaalo weyn oo magaalooyinka metropolitan city la yiraahdo magaalooyinka dhulka weyn ku fadhiya Mareykanka marka imbaradoriyadiisi waxaad moodaa in isbedel weyn uu ku yimid sida qabiirada qaar ay ku dhigayaan dagaalka uu ku jabay Iran haduu guul sheegto iyo haduu guul sheeganba waxay isbedel ku keenaysaa meeqaamka caalamka uu ku lahaa wadanka Mareykanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraaradii la waday waa shaqeyn la yihiin oo caqabad waxa ku ah wadamadii waaweynaa Mareykankana awood oo Iran ku muqoonay ma hayo xiriyihiisa militariga oo dhan sida uu u dhigayo hadalka Douglas McGregor ciidankii Mareykanka ee saldhigyada lahaa oo dhan in saldhigyadaas oo dhan kulligood la xiray oo wax ka howlgali kara aan la arag wadamadii ay ciidamadaasi joogeenna inay Mareykanka ku wargeliyeen wadankeena kama duuli kartid sababtoo ah kaabayaashan ayaa burburaya waxaana muuqata Mareykanka bari oo bisha April ay 6 tahay waxaa dhamaanaysa waqtigii kama dambaysta 24 saacadood aha 48 saacadood oo Mareykanku qabtay iyo 10 maalmood oo hore u qabtay waxaana muuqata hadalka uu hadda jeediyay in isniinta ay ku agtahay inuu talaadada duqeyn geysanayo duqeyntaasna uma muuqato Iran nidaamkeeda difaaca inay degdeg gelisay ay sheegtay waxaana muuqata in darsi yar lagu bartay dagaalkii dhacay 24 saac ka hor ee diyaaradaha laga daadiyay ee lagu tartamayay duuliyaasha iyo ninkii kale ee la socday diyaaradda dagaalkaasi iyo dadaalkaasi waxa la dhacay wuxuu hordhac u ahaa waxa dhici kara dagaal lug haduu Mareykanka ku galo sababtoo ah Mareykanka soo qabashada ama soo furashada askarigaasi duuliyaha dhibaato weyn iyo khasaaro weyn oo lagu qiyaasay dhowr diyaaradood inay uga dhaceen 6 lagu qiyaasayo muuqatana Iran inay Mareykanka gabanaynin Iran Mareykanka way u ceel cuntay 47 sano ayay dibanta dhexda ka qaniinaysay haddana waxaad moodaa in Ilaahay gacanta sare siiyay xaalkana uu Mareykanku xun yahay waliba
dembiga uu maraykanka loo tirinaya ayaa waxay tahay dhibka u geystay maba yaqaanaan iyo ninka ay dileen iyo ninka hogaamiyaha ruuxiga ah hadda oo asagoo wiil yara ka tirsanaa ciidamada ilaalada kacaanka ah oo yahay nin jabhada haddana ilaha qaar ay sheegayaan in uunan u tanaasuleynin madaxweynaha maraykanka fariin kastoo timaada iyo meel kastoo timaada horaa loogu sheegay dagaalka waad bilaabi karaysaa baa la yidhi laakiin joojinteeda iiraan ayay u taallaa iiraan inay dagaalka joojin doonto shaki baa ku jira hataa maraykanka hadduu iska tago waxaana loo badinayaa wadamada gacanka in ay yeelanayaan inay xiriir cusub la yeeshaan waddanka iiraan oo awooddiisa muujiyey waa bilowga isbedelka ayaa la yidhi siyaasadda gobolka bariga dhexe oo noqon doonta siyaasad ka madax bannaan maraykanka ilaaha qaarkood waxay leeyihin maraykanka hadduu sidaa u nuglaa mar hore maxaa loo waayay cid wanaagsan oo isku taagtay waxay taaba waqtiga ayaa u deeninaa waayo waxaad umahadsan tahay waayahay daawadayaal barnaamij eegna war degdega oo hadda soo dhacay duqeymo culus goor dhaweeytay inay ka dhaceen waqooyiga Israa'iil waxaa lagu soo tabinayaa aaga Haifa oo waqooyiga Israa'iil ah ugu yaraan 10 qof hadda in la xaqiijiyay dhaawacooda qaar ka mid ah dhaawacooda halis uu yahay gantaal nooca plastic ah waxaa la sheegayaa inuu ku dhacay dhismo ka kooban dhowr dabaq waxyeello ballaaran uu geystay waxaa lagu soo warramayaa meelo kale oo ku yaala aaga gantaalku ku dhacay dab xoogan inuu ka kacay waxaa jirta cabsi ah dad badan inay ku hoos jiraan burburka dhismaha ku yaala Haifa oo gantaalkan oo dhanka Iiraan laga soo riday oo ku dhacay ciidamada Israa'iil gaar ahaan kuwa difaaca ayaa qirtay in dhowr gantaal oo nidaamyada difaaca lagu riday gantaalkaasi laakiin ay ku guuldareysteen in ay qabtaan sidoo kale wargeyska Maarif ayaa isna waxa uu sheegayaa in 7 gantaal lagu riday hal gantaal laakiin ay ku guuleysan waayeen inay qabtaan gantaalkan uu ku habsaday dhismo dhowr dabaq ka kooban wararkan waa warar hadda soo dhacay wixii ku soo kordha waynu arki doonaa oo barnaamijyadeena dambe ayaan idinkugu soo gudbinaynaa haddii alla idmo ama intaynu barnaamijka ku jirno waayahay isla war kale oo hadda soo dhacay degdeg ah madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegayaa sida Axios ay tibinayso in Steve Witkoff iyo si hadal ku yiri ergeygiisa bariga dhexe weeyaane iyo Jared Kushner inay wada hadallo la leeyihiin Iiraaniyiinta lana filayo maalmaha soo socda in la gaaro heshiis uu leeyahay waa suurtagal in heshiis la gaaro warkaasna hadda ayuu tabiyay madaxweynaha maraykanka Donald Trump waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashu ay baasan yihiin inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir